Costa Rica oo ah dal ku yaala bartamaha Ameerika waxa uu lahaa ciidan military oo rasmi ah kadib markii uu helay madaxbannaanida laakiin waa uu iska mamnuucay dalkan inuu ciidan xooggan yeesho si uu nabad iyo xasilooni u helo haddaba waa maxay qisada ka dambaysa dalkan wuxuu mar ahaa mid hantiyay ciidan door muuqda ku leh siyaasadda gaar ahaan qarnigii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad markaas oo ay jireen isku dhacyo siyaasadeed oo soo noqnoqday iyo afgambiyo ay militarigu ku lug lahaayeen ciidankii militariga ee Costa Rica wuxuu asaaskiisu u laabanayaa xilligii madaxbannaanida uu helay dalka markaas oo ay Costa Rica xorriyaddeeda ka qaadatay boqortooyadii Isbaanishka sanadkii 1821 kadib xorriyaddana waxaa bilowday dadaalo lagu dhisayay laguna abuurayay ciidan militari oo u taagan difaacidda madaxbannaanida qaranka cusub intii lagu guda jiray qarnigii 19aad ciidamada Costa Rica waxay ahaayeen kuwo leh awood ciidan iyo mid siyaasadeedba waxa ayna ka qayb qaateen dagaallo gobolka ka dhacay iyo isqabqabsi siyaasadeed oo mararka qaar horseeday afgambiyo tusaale ciidanka Costa Rica wuxuu qayb ka ahaa dagaaladii midowgii la oran jiray Federal Republic of Central America oo ahaa isku day ee dalalka gobolka ku doonayeen in ay ku yeeshaan hal dawlad laakiin midowgan wuxuu burburay sanadkii 1838 waxayna kadib Costa Rica noqotay dal madax bannaan oo ciidan u gaar ah leh sidoo kale ciidanka Costa Rica waxaa lagu xasuustaa guushii weyneed ee ka gaareen dagaalkii Santa Rosa ee sanadkii 1856 markaas oo ay ka guuleysteen ciidankii William Walker oo ahaa nin Mareykan ah oo xoog ku qabsaday dalka Nicaragua kaasoo doonayay inuu dalalka Latin America ka dhiso dawlad caddaan ku leeyihiin ganacsiga adoonsigana ka shaqeysa qarnigii 20aad ciidankii militariga ee Costa Rica wuxuu noqday mid si aad ah ugu dhex milmay siyaasadii gudaha awoodooduna waxay ahayd mid si joogto ah loogu adeegsado caburinta mucaaradka faragelinta doorashooyinka iyo dabargoynta kacdoonadii ka curtay dalkan tanina waxay keentay in militariga laga cabsado loona arko awood si qaldan loo adeegsado intii u dhaxaysay 1910 ilaa 1940 wuxuu nidaamka xukuumada dalkan uu la kulmay dhowr isku day afgambi iyo xasilooni darro siyaasadeed oo ciidanka militarigu si toos ah ama si dadban ugu lug lahaa waxaana sidoo kale ciidamada loo adeegsaday cadaadinta iyo caburinta shacabka isbedel doonka dabayaaqadii afartameeyadii ee qarnigii tagay ciidanka militariga ee Costa Rica wuxuu lahaa awood xooggan oo aan nidaamsanayn wuxuuna kol walba u adeegayay danaha siyaasadeed ee kooxda awoodda haysa mana ahayn ciidan qaran oo si buuxda u matala muwaadiniinta oo idin burburinta ciidanka Costa Rica ma ahayn arrin degdeg ah ama mid ku timid cadaadis dibadeed balse waxay ahayd go'aan siyaasadeed iyo mid falsafadeed oo uu dalku si ujeeddo leh u qaatay kadib waqti adag uu galay dhacdadii ugu saameynta badneed ee horseeday burburinta ciidanka Costa Rica waa dagaalkii sokeeye ee 1948 kaasoo la oran karo waa dagaalka ugu saameynta weyn marka la eego taariikhda dalka bishii Febraayo ee 1948 waxaa qabsoontay doorashadii madaxtinimo ee dalka waxaana codbixinta ku guuleystay musharaxii mucaaradka ee lagu magacaabayay Otilio Olate balse xukuumaddii markaas jirtay iyo baarlamaanka oo ku dhawaa xisbiga talada hayay ayaa sheegeen in doorashadu musuqmaasuq hareeyay isla markaana lagu laabanayo natiijada go'aankaas wuxuu horseeday carro xooggan oo ay muujiyeen shacabka iyo mucaaradka Jose Figueres oo ahaa ganacsade siyaasi iyo hogaamiye haystay ciidan ayaa hogaamiyay kacdoon hubeysan oo lagu magacaabo Ejército de Liberación Nacional dagaal sokeeye ayaa qarxay oo socday qiyaastii 40 maalmood 12 Maarso ilaa 24 Abriil ee 1948 in ka badan 2,000 oo qof ayaa dhimatay ciidamadii dawladda ayaana ku guul dareystay inay joojiyaan kacdoonka ugu dambeynna xukuumaddii jirtay waa ay isdhiibtay waxaana awoodda la wareegay Jose Figueres wuxuu ku dhawaaqay inuusan doonayn in mar dambe la arko ciidan mar kale awood u yeesha inuu shacabka qasbo ama doorashooyinka farageliyo 1 December ee 1948 ayuuna Figueres si rasmi ah ugu dhawaaqay in la burburiyay ciidanka militariga ee Costa Rica waliba asigoo ku sugan saldhiggii ciidanka ee caasimadda dalka ee San Jose wuxuuna gacantiisa ku burburiyay gidaarka ama derbiyada saldhigga ciidanka sanadkii xigay ama 1949 waxaa la qoray dastuur cusub oo si rasmi ah u mamnuucaya in dalku yeesho ciidan joogto ah oo military waxayna tani Costa Rica ka dhigtay wadankii ugu horeeyay ee caalamka ee ku dhaqaaqay talaabo noocan ah qodobka 12aad ee dastuurka dalkan ayaana sheegaya
inay mamnuuc tahay inuu dalkan yeesho ciidan military oo rasmi ah ama joogto ah. dal asiga iska mamnuucay ciidan awood leh si uu xasilooni iyo nabad u helo. inkastoo Costa Rica maanta aysan lahayn ciidan military oo rasmi ah, haddana dalku wuxuu leeyahay hay'ado amni oo suga amniga, wuxuuna dalkan leeyahay nidaam boolis oo heer qaran ah kaasoona leh qaybo kala duwan sida Fuerza Pública ama ciidanka dadweynaha oo ah hay'adda ugu weyn ee amniga gudaha, taasoona qaabilsan ilaalinta kala dambeynta gudaha, kormeerka wadooyinka iyo bulshada, iyo la dagaalanka dambiyada guud. ma ahan ciidan military oo si weyn u qalabaysan, waxayna hay'addan hoos tagtaa wasaaradda amniga dadweynaha. Policía de Fronteras waa ciidan boolisa oo qaabilsan xuduudaha uu dalkan la wadaago dalalka Nicaragua iyo Panama. waxaa jira cutub boolisa oo lagu magacaabo UEI, waana mid qaabilsan weerarada argagixisnimo, afduubyada, dagaalyahanada hubaysan iyo ka hortagga qalqalka amni ee culus. DIS waa hay'adda sirdoonka gudaha, waxayna mas'uul ka tahay la socodka khataraha ka dhanka ah qaranka iyo xog ururinta amni. inkastoo Costa Rica aysan lahayn ciidan military oo joogto ah tan iyo 1948, haddana waddanku wuxuu leeyahay nidaam amni oo xooggan, qorsheysan, lagana shaqeeyay muddo 10 sano ah. waxayna qayb ka tahay Costa Rica urur goboleedka bartamaha Ameerika ee SICA. haddaba sidee Costa Rica isku difaaci kartaa haddii dal shisheeye duulaan ku soo qaado? Costa Rica ma laha ciidan military oo rasmi ah, sidaas daraaddeed ma jiraan diyaarado dagaal, taangiyo ama cutubyo ciidan oo u diyaarsan dagaal ballaaran. laakiin waxay ku tashanaysaa dhowr arrimood, sida inay tahay dal sumcad fiican ka haysta dhanka nabadda iyo diblomaasiyadda, dalal badan oo caalamkana xiriir wanaagsan la leh, inay horseed ka tahay nabadda gobolka, iyo inay tahay dal aan wax dhibaato ah ku haynin dalalka la deriska ah. marka weerar ama duulaan lagu soo qaado, Costa Rica waxay aaminsan tahay inay si degdeg ah u codsan karto faragelin caalami ah iyo in dalkeeda la keeno ciidamo ka socda qaramada midoobay. inta badan shacabka Costa Rica iyo xisbiyada siyaasadeed dalkan waxay taageersan yihiin inuusan dalkan yeelan ciidan military ah oo rasmi ah, waxayna ciidan la'aanta u arkaan inay ka dhaxleen nabad iyo xasilooni. kadib markii ciidanka militariga la mamnuucay, wax xasilooni dara ah dalkan kama dhicin muddo ka badan 75 sanana. dalkan wax dagaal ah kama dhicin. dhaqaalaha dalkan wuxuu si weyn diiradda u saaraa horumarinta nolosha shacabka, halkii lagu bixin lahaa dhaqaalaha dhisidda iyo dayactirka ciidan xoog leh. waxayna la'aanta ciidan rasmi ah noqotay Costa Rica dalka ugu nabdoon bartamaha Ameerika, waxayna mucaaradka dalkan ku naaloodaan xorriyad siyaasadeed oo militarigu ka caagan yahay. waa dal aan lahayn miisaaniyad ciidan oo sareysa, taa beddelkeedana waxaa dhaqaalaha dalkan loo weeciyaa dhanka caafimaadka, kaabayaasha dhaqaale iyo waxbarasho bilaash ah oo ilaa dugsi sare ah. nabadgelyada ka jirta dalkan dartiis wuxuu soo jiitaa dalxiisyaal badan, waana dalka loogu booqashada badan yahay bartamaha Ameerika. Costa Rica waa dalka ugu dhaqaalaha badan bartamaha Ameerika, sidoo kalena waa dalka ugu nabadda badan. haddana sidaas oo ay tahay, ma lahan ciidan rasmi ah oo military. dalka deriskiisa ah ee Nicaragua waa dalka ugu saboolsan gobolka, waana mid leh ciidan xooggan, waxaana madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ah nin iyo xaaskiisa. dal walba arrimo u shaqeeya ayaa jira oo xal u ah, muhiimaduna waa in ummaddu garato halka dhibaatadu ka haysato, xitaa haddii arrinka dhibka keenaya uu yahay mid dad kale ay ka faa'iidaystaan. adigu maxay kula tahay? waa maxay waxa ku habboon inay Soomaalidu iska mamnuucdo?